بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله intaa kadib assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh insha allahu tacaala maanta halka waxaanu ka sheegi doonaa miimka marka uu shadan yahay iyo nuunku marka uu shadan yahay xukunkooda ama axkaamta la siiyo. horta sideedaba shadka haddaan yar ku dul maro waxaa laga yaabaa inaan meelo badan kusoo sharxay, laakiin shadku wuxuu ka yimid calaamatu shad. kelmadaasi shadda waa la adkeeyey, shadda waa la adkeeyey. marka adkayntaas waxay ka dhigan tahay laba xaraf oo isku mid ah sida miim iyo miim oo kale oo iska daba dhacay oo isku xiga oo ka horena uu sukuun saaran tahay, xarafka hore uu yahay xarakada sukuuntu saaran tahay, ka dambana ama fadxa ama dhamma ama hoos dha uu saaran yahay. ay xaraka uu qaadan kara, ay xaraka nooc xaraka kasta. marka kaba soo qaadino keeni hore uu saaran yahay sukuun khasab yahay, ka dambana uu saaran yahay fadxa oo kale, labada xarifna ay isku mid yihiin oo ay yihiin miim iyo miim. marka laba miim oo isku mid ah laga qori lahaa ayaa waxa la qoray miim quraata oo waxa la yiri waxa la tusay in la yiri waa la adkeeyey, shadda waa la adkeeyey, yani laba xaraf oo isku mid weeyaan adkee. adkeyntina laga soo qaatay shiinki la yiri waa shadda, halkaas ka timid. shiinkina la gooyo oo la soo qaatay gantada yare dusha u taaganee sidaas oo kale ah oo ku tusaysa in ay tahay kelmadii in la adkeeyo. marka halkaas la dul saaray, halkaas uu ka yimid calaamadaasi. horta marka calaamadaasi waxa weeye shad, adkayn oo ku tusaysa laba xaraf oo isku mid ah inay meeshii yihiin. fadxihiina waa ka xarafka dambe xarakadiisii baa la siinaya. marka xarafka dambe xarakadiisii ayaa la siinaya oo ka hore maadaama sukuun saaran yahay oo lagu dhawaaqaynin, ka dambe xarakadiisii ayaa lagu dhawaaqaya oo saas loo akhriyay ka ma oo kale. adaad imika ka horeysiiso kasra oo miim shad aad akhrido oo fadxa saaran waxaa la oranayaa imma. marka halkan waxaad ku yar haynaysaa waxoogaa qadar laba xaraka oo ah inaad ka tusto inuu laba miim yahay, miimka koowaad oo sukuun saaran yahay, miimka labaad oo uu fadxa saaran yahay. nuunkuna waa la mid, waa laba nuun oo isku mid ah, ka hore sukuun saaran tahay, ka dambana oo xaraka saaran tahay. marka insha allahu tacaala halkaasi aynu kaga baxnaa shadka wuxuu yahay. marka haddaad aragto miim iyo nuun shadan saa ugow. marka wuxuu yiri sheekhu almiim wanuun almushadadatayn, miimka iyo nuunka labaduba ay shadku saaran yihiin. wuxuu yiri wagunna sheekhow ama ardayow gunnee, codka ka soo baxa sanqaroorka weeyaan, barhna in yarna afka ka soo baxdo kasaa gunna la yidhahda. cod dananaya oo sawd macaan u dananaya la yidhahda gunne. wagunna gunnee miiman, xarafka miimka ah. ثuma intaa kadibna nuunan, nuunka xarafka la yidhaahdana isna gunnee. shudida marka la shad la saaro, marka labadooda shad la saaro oo calaamatu shad ay ka muuqato oo daragto inay shad saaran yahay, gunnee. gunnuhuna waa maxaa weyn nidhi, waa cod fiican oo dananaya oo macaan oo qurux badan oo ka soo baxa sanqaroorka iyo afka in yar haaf haaf. marka wuxuu yiri wasami ku magacaw kanna kullan labadoodabana xarfa gunnatin, xuruuftii gunnaha badaa oo muuqday. marka xarafkaasi miimka iyo nuunka waxaa la yidhahdaa xuruuftii gunnaha, xarfa gunnatin badaa. marka xuruufta gunnaha keenaysa codka dananaya ee ka soo baxaya sanqaroorka waxa keena nuunka iyo miimku markay shadan yihiin. inna inkastoon kaa tustoon imika halkan insha allahu tacaala. haddaan halkan kaa tuso oon idhaahdo sheekhu wuxuu yidhi qur-aanka, haddaan kaa tuso imika halkan insha allahu tacaala oon idhaahdo miimka haddaan noo soo qaaday oo kale imika miimka shadan. miimka markuu shadan yahay halkaa waxay noogu jira miim shadan, halkaana miim shadan bay noogu jira, inkastoo uu wax ka horeeyaan, xukuna ka horeeyaan oo kan uu ka horeeyay tanwiin. halkan imika kan waxba kama horeeyaan, kan inoo soo qaad, kana sidiisa u madax bannaan. marka miimkii shadnaa calaamadiisii waa kaanu ka soo sheekeynay, fadxana wuu saaran yahay. marka imika miimka markaad akhrido qunnaha le ee tanwiinta lagu akhriyayo waxaa la oranayaa wafaakihatin, oo taasi waa tanwiintii
iyo miim iska daba dhacday xukunkaasi waxaan soo qaadanay waxaan kasoo qaadanay inaan kusoo dhaafno idqaamkii xuruufta idqaamka weeyaan oo marka la helo nuun reeban iyo tanwiin xukunka dhalanayay casharadeena kusoo qaadanay oo la yidhaahdo inuu yahay idqaam marka kaasi waa idqaam xukunkaasi maanta ma dhiganayno waa tanwiin iyo miim maanta ujeedadeena u soconaa waa halkan waa miimkan shad ku saaran yahay marka haddaad aragto miim shad saaran yahay waxaad ku haysaa xarakatayn qulnana si مما وفاكهة تم markaad akhrido xarafkaasi qunihiisii kadib waxaad akhriyaysaa miimkaasi uu shad ku saaran yahay oo aad ku haynaysaa qunihii وفاكهة مما halkana waa lamid insha allahu tacaala miimkaasi shad baa saaran isna waa la quninaya ولحم طير تنوين يو ميم iska daba dhacay xukunka uma jeedno waxaan u jeednaa oo soconaa imika maanta nuunkan uu shad ku saaran yahay insha Allah taala ولحم طير مما markaad ka akhrido kasrahan kubud meesha nuunka miimka shadan atrada mimma wa xarafki u saarna shadku xarakateen ku hay insha Allah taala haddaynu halkaa ku dhaafno kaasi ooynu eegno bal nuunkan haddaynu eegno xarafka nuunka la yidhahdo isna haddaynu eegno nuunku markuu shidan yahayna waa kan nuun almashduuda nuun mushaddada nuunka shidan iminka nuunkani wuu shidan yahay nuunkanna wuu shidan yahay iyo kan iyo kan iyo kan marka waxaad eegtaa haa baa ka horeysa أولادهن هن كل هاي حركتين وأرجلهن فبايعهن لهن إن حركتين شيخو marka maanta waxaanu dhiganay haddaan duuduub u samarno miim shadan iyo nuun shadan marka ay qaataan shadka ama fadxa ama kasra ama damaha qaataane qunna la siinaya xarakatayna waa lagu haynaya qadar laba xaraka aad ka akhriyayso insha Allah taala ilaahay nagu anfaco intaanu ka galino 10 soo socda ilaahay hayna garsiyo insha Allah taala ilaahay nagu anfaco wassalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh